ويسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحي tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqan galiyay marka waa dadkii diinta dhaqan galiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka inaga waxaynu haynaa hadda isagoo quraan iyo sunna ah oo qoraal ah laakiin marka kane waxa weeyaan isagoo camaliya oo dad ay matalayaan quraanka iyo sunnadii yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matalayaan quraanka iyo sunnadu siday u ekaayeen saadaradeed way fahamkeedu wuu ka dhow yahay qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba waxaan isku dayi doonaa markaasi balse labada sheekh u soo naqliyaan inta badan inaan usoo guuriyo haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanyay in gaar loo sii tilmaamo insha allahu haddaynu awoodno isku dayi doonaa cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka warramayaan waxay u sameeyeen gogol dhac ama hordhac hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nebiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam hordhaca waxaa looga dan leeyay inay dadku fahmaan bulshadii uu nebigu u yimi caynkay u ekay si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday u ekaatay yani waxaad qiimayn fiican sawiri kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawanmay siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa oo markaad ka jaahiliga ah suuraddiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay waxaa kaloo runtii dhadhawaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac noocaa u egba la raray oo islaamnimada ay beddelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ilaa iyo in la rari karo noocan loo rari karo ay ku xidhan tahay uun sida alla inoo waafajiyo subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uu u bixiyo oy dadka diinta tan ugu yeedhayaan qaybtaa hore markay ka warramayaan culamada taariikhda islaamiga oo qorta qaarba sibay u tilmaamaan qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inay kasoo sheegaan yani min aadam kutubu taarikh in badan oo ka midi nebi aadam bay kasoo bilaabaan qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla u sameeyey waa ka ilaa ay soo gaadhsiiyaan laakiin taariikhahaas hore ee qadiimka ah waxoogaaga yaree waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha sidaa awgeed labadan kitaabee horteena yaalla midba in buu soo koobaya laakiin waxay isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro kow ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruuf ah carabina intan jaziira alcarabiya la yidhaahdo unbay taarikhdeedoo dhan degi jirtay carabta taariikhiyan markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday waa caad iyo thamuud iyo kuwan qur-aanku ka warramo iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaariba oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha iyo carab almustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah inkastoo culammada badh ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galaan waana sida uu rajaxayo ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximahu llah alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit binu ismaaciil buu qabaa halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carbeed marka la tilmaamayo maalan qaxtaaniyiinta nimanka la yidhahda asal waxa u ahaa yeman laba qabiilo waaweynna waa u qaybsanaayeen niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray kahlaan inta badan waa guureen oo sham iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen ximyar inta u badnaa dadka meesha tan kusoo hadhay carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga abtirsata nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam nebiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay dabeetana falastiin buu u hijrooday kadibna wuxuu yimi maka halkan markii dambe laga sameeyey
waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaallay ibnu cabbaas uu warinayay mawquufka ibnu cabbaas ku ahaa siduu sheegayey haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam labadoodaasi ayuu maka keenay dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timira ama laba weeloo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto oo u sheegayna inuu ilaahay subxaanahu watacaala amray inuu halkaa kaga tago sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday markaa hore ismaaciil keenay mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aankii ka warramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa falama aslama watallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم مركا الله سبحانه وتعالى كقول رميه ويقول هذا كتاب التوراة هايسته أما كان يمكن التوراة كشجين سفر التكوين كودنا وكشجين ودورية تبنشير مركاها نبي الله إسماعيل marlabaadkii uu ku soo noqdayna waa markay axaadiistu ka warramaysaa inuu yimi oo dabeetana u yimi isagoo nebi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu ugu yimi dabeetana uu weydiiyey xaalkooda iyo siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato nolosha ay cidhiidhi ku tahay oo yidhi waa tegayaa inankaygii farriintaa gaadhsiiya waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi casabada albaabka ama kaabadda guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha nebi ismaaciille markii uu yimi ay gabadhii u warrantay wuu fahmay aabbihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa mid khayr badan maahee dabeetana waa iska sii daayey waxaa kaloo riwaayaadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi markan saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado tii hore uu furay gabadhii kale markuu la hadlayna ee uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tidhi waa fiican nahay iyana farriin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inankaygii waa tegayaa isagoo maqan markana buu yidhi oo safarkuu jiro wuxuu yidhi farriin labaad xaasabadaadana yacni gabadhan hayso waraa buu uga tegey mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa taariikhda sugan ee la hayo axaadiistiya qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey uu ismaaciille nin weyn ahaa isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen 4 jeer bay yidhahdaan buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey taariikhda carabeed cumuuman markaynu tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam